kulan ay soo qaban qaabiyeen Somali American Police Association of America ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda Soomaalida ay u badan tahay Cedar ee magaalada Minneapolis. Ujeedada kulankan ayaa ahaa mid looga arrinsanayay amni darrada magaalada. Waxaa muuqatay in booliska Soomaalida ay doonayaan in ay wax ka qabtaan isla markaana ay dhageystaan hooyooyinka Soomaalida kuwaasi oo si weyn ay u saameysay dhaca iyo boobka ay u geysanayaan dhalinyaro hubeysan. Cedar oo dhan qatar bay ku suganta. Habeenkii ayagii baa isdilaya. Waxay isku dilayaan dukaamada iridooda. Waxay isku dilayaan maxay ta bangiga gadaashiisa guryaha Cedar dhexdoodan isku dilayaan. Maxay ta dilay kur ayagii baa dadka dhacaya boorsada ka dafayaan. Hal shilin gacanta laguma soo qaadan karo. Hadday wax kala waayaan dadka waxay ka dafayaan telefoonka. Marka dhibaato meesha haysata area-dan Riverside wallahi. Marka dawladdu waa inay si wanaagsan iyo si area-dan ay u eegto. Ayagoo yahay Cabdiraxmaan Tooxo Jimcaale ahna gudoomiyaha guddiga community-ga North America waxaan maanta mahad inoo in booliska noo yimaado ayagoo raba amniga xaafadda inay ka shaqeeyaan amniga xaafadda aad u soo halaabay North America oo dhanba waxaan leenahay booliska nu sheegeena sida ugu dhaqsaha badan dadka ha siiyaan amnigoodan hana ilaaliyaan markii loo wacan emergency-ga in si degdeg ugu yimaadaan ayaan ka rajeynaynaa hadda hawsha wadaan booliskan waa si wanaagsan annagu waxaan rabnaa nabadgelyo boolis baan rabnaa hadaan reesidarnay waxaan rabnaa boolis nabadgelyada iyada suga waxaanu ka soo cararay nabadgelyo la'aan waxaan rabnaa boolis nabadgelyada iyada suga intaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay booliska Soomaalida Mareykanka kuwaasi oo sheegay in ay wax ka qabanayaan amniga maanta waxaanu la kulannay Somali community-ga oo ku nool Minneapolis Cedar Riverside area waxaanu ka wada hadalnay waxyaalo badan oo ka mid ah ammaanka bulshada iyo xiriirka bulshada iyo booliska say isula shaqayn lahaayeen runtii waxaa ka yimi caqabado badan baa ka yimi dhinaca ammaanka waanu la hadalnay waanu kala tashanay insha Allah waxaanu sameynaynaa xiriir badan aanu kula tashanayno community-ga aanu ka soo jeedno iyo sugidda ammaankooda oo wax laga bedelo insha Allah magacayga waxaa la yiraahdaa Ibrahim Jidaal baa la yiraahdaa waxa ay ka mid ahay ciidamada booliska magaalada Minneapolis area-dan baa ka shaqeeya sababtan meeting-gan iyo event-ga u sameynay anu area-dan baa ka shaqeeyay saddex kalo inamada Soomaalida cabashada dadka Soomaalida ku qabaan baa aragnaa maalin kasta safety-ga markay ahaato iyo waxyaalo kale badan way noo cabtaan the reason meesha dadkan oo keenay imika council member-ka meesha keenay si codkooga loo maqlo dadka area-dan degan especially Cedar Riverside inta badan waxay ka yimaadaan dadka businessyada kule 24-ka Franklin and Chicago si hagan codkooga loo maqlo maxaa la yiraahdaa we were hopeful in mayorku meesha imaado dacwad oo jeedinay uu noo iman waayay dadka meesha dadka imid aw maxaa la yiraahdaa uu shaqeynaya sida council member-ka Jamaa wala shaqeeya dadka cabashadooda waa u sheegnaa markasta ma taqaanaa wuxuu xawilay inuu wax ka qabto kale politician kuma taqaanaa waxay yimaadaan markii vote-ka dadka ka rabaan oo kale haddii man waaye marka cabasho qabtid oo kale maalinta vote-ka maxaa la yiraahdaa voteynaysi just make sure to vote for the right person dhanka kale waxaa kulankan goobjoog ka ahaa Jamaal Cusmaan oo ah gudoomiyaha degmada 6aad ee magaalada Minneapolis dadku waxay ka cabanayaan nabadgelyada xaafadda ka jirta xaafadan bas ma ahana Minneapolis oo dhan oo dadkii ma taqaanaa lagu dhibayo anagu mar walba waxa u taaganahay marka nabadgelyada inaan sugno maanta waxa noo yimid shariifka xafiiskiisa dhalinyaro badan oo Soomaali ah iyo booliska MPD-ga ayaa noo yimid marka waxaan u sheegayaa ummadda marka hore inay fijigsanaadaan midda labaad reality-ga waxa waaye xilli adag baan ku jirnaa xilliga hore ma joogno xilli adag oo booliskii naga kala tagay oo booliskii ma taqaanaa almost 240 booliis ay ka tageen meeshay 30 booliis joogi jirtay maanta 5 baa joogta 5tiina 91 bay ku mashquulsan yihiin AJ Cawad waa musharaxa duqa magaalada Minneapolis isna kulankan ka soo qayb galay ayaa ballan qaaday in uu wax weyn ka qabanayo amniga magaalada haddii loo doorto duqa magaalada Minneapolis hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
magacii waxaa weeye AJ Awad. I'm the executive director oo xaafadan maamulkiisa si aad u aragtiin xafladan oo isku imaankan qurux badan oo maxaa walaalaheena askarta ka tirsan oo maxaa magaalada iyo magaalada nugu dhow metropolitan-ka ah maxay u imaadeen u soo booqteen inay dadka la hadlaan oo maxaa yiraahdaan insha Allah feedback ka helaan si aad u ogtihiin magaalada wallahi meel xumi maroosa amniga maxaa weeye maxaa wax hadda qof kasta uu arko waxa uu weyn oo magaalada ka socoto si aad u ogtihiin Soomaaliya hadaan nahay askarta iyo maxaa yiraahdaa systemka runtii anaga ma noo turto so si aad u aragtiin inta anaga isku imaano weeyo isku tashano oo maxaa yiraahdaa dad badan oo hadda xildhibaanka aan la joogay askartiyaal oo badan aan la joogo so anaga dad badan meel kasta waa noo joogo so anaga awoodeena hada isku imaano waxa ka tashano wax waa qaban karnaa waxaa jiro isku dayo badan oo la doonayo in wax laga qabto amniga magaalada Minneapolis. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.